السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمانtiin soo dhawaada saaxiibayaal kanaalkayga youtube-ka iyo facebooka iyo meelaha kale igala socotaan ayaad igala socotaan haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe follow iyo like iyo kulli nagu caawo insha allah maanta waxaan ka hadlaynaa bal arrinta cryptada iyo sababta hoos u dhaca xoogga leh uu ku yimid taas oo shalay mar aan facebook page-kayga Saciid Khaliifna kusoo qoray in bitcoin kaliya uu lumiyey boqolkiiba 7 intii uu fadhiyay hadda in kusoo dib usoo yara noqdaa moodaa xoogaa laakiin shalay ilaa 107 kun ayuu gaaray hadda laakiin 111 iyo 600 meelhaasuu marayaa marka waxaan isleeyahay bal faktarada saameynta ku yeeshay in hoos u dhacaas yimaado haddaa wax yar ka sharxo maadaama ay dhowr qofna isoo weydiisay kow waxaa ka mid ah wax loo yaqaano micro global economic shocks taasoo ah in uu dhacay global economic shocks oo maxaan ku dhahayto waxyaabo badan oo laga baqayay iyo dagaalada laga baqayay inay sii socdaan iyo waxyaabahaas ay istaageen taasna ay saameyn ku yeelatay in hoos u dhac uu ku yimaado inta badan cryptada waxaa aad loo iibsadaa marka uu jiro waxaa loo yaqaano dagaalada iyo maxaan ku dhahay colaadaha iyo markay sii badanayaan maadaama dadku lacagaha badan ay gashanayaan marka taasaa keenaysa in hoos u dhac uu ku yimaado maadaama dagaalkii Ghazdana moodid in xabad joojin laga gaaray sidoo kaleetana maxaan ku dhahayto dhaqaalihii Mareykan ama xoogaa inuu soo rooraanayo mid waa taas midda labaad oo loo malaynayo iyaduna inay sababta u tahay inuu maaragtay hoos u dhacaas cryptada ku timaado waxa weeyaan wax la yidhaahdo profit taking baa dhacay oo sidaa ogtihiin crypto for the last 3-4 months u dambeeyey waxay ku socotay kor bay u socotay marka inta badan dadka traderska oo ku jiraay cryptada waxay sameynayaan lacagihii badan ayaa lagala baxayaa bitcoin oo kale haddii lacaga badan lagala baxo hoos uu soo dhacayaa dad badan qaarkoodna waxay sameynayaan hoos u dhacaas ay rabaan inay hadhow ka faa'iidaystaan oo lacaga badan bay waxay dhigayaan wax la yidhahdo buy limit meel hoose marka buy limitkaas oo kale usoo qaato waana sababta keeni doonta hadda inuu kor usoo kaco baa iyaduna keeni doonta in markaasi lacago ay cryptada hoos usoo dhacdo iyadoo profit badan lacag badan lagala baxayo midda saddexaad ana isleeyahay waxaa ka mid ah loss of momentum wax la yidhaahdo taasoo ah in momentumkii ay ku socotay ay moodo inay dhuminayso dadka tradingka yaqaanaa jiray lacagtu markay kor isaga socoto way daashaa marka inta badan markay daasho waxaa dhacaya decline wax la yidhaahdo oo ah inay hoos usoo dhacdo oo markaasi ay si ay awood usoo yeelato inay wax intay hoos usoo dhacdo ay kadib dib u noqoto waana midda aniga aan rajaynayo crypto mar walba kor bay u socon doontaa ayaamahan gaar ahaan inta Trump joogo adduunka xaaladihiisuna aysan deganayn marka midda ku xigta waxay tahay arrinta Trump markaasi iyaduna uu ugu soo rogay taariifka xooggan China ugu soo rogay taas oo horey u joojiyay ama uu yareeyay hadda laakiin uu dib u soo celiyay arrintii ahayd 100% taariif ama canshuur dheeri ah badeecadaha ka imaanaya China in uu ku soo rogay marka taasna waxay keeni doontaa ayaduna in dadka baqdin badan ay soo wajahdo cryptadii oo kale ayadana in canshuuro dheeri ay waxyaabahaas ugu soo roga laga baqayo lacagihii lagala baxo marka arrimahaas oo dhan waxay ka qayb qaadanayaan decline-ka iyo hoos u dhaca cryptada ku yimid waxaa kaloo iyaduna moodaa oo lagu sii dari karaa qodobka u dambeeya aan ka dhigaynaa arrinta dadka gadanaya cryptada ama gaar ahaan BTC da Ethereum kuwooda waaweyn in ayaguna ay maadaama ay kor isaga socotay wax badan inay baqdin gelayso taasoo keenaysa in dad badan aysan gadanin cryptadii taasoo hoos u dhigaysa dhimaankii loo qabay cryptada ayaduna waa mid ka mid ah waxyaabaha keenaya inay hadda hoos u dhac ku yimaado laakiin generally haddaan soo koobo waxaan is dhihi karaa aniga baqdinta laga qabo crypto inay hoos zaa'id ugu dhacdahay aad uma sii buurna waxaana weli rajaynayaa inay wadi doonto kor u kaca meel fiican oo ka badan gaarto ilaa 200,000 haddaysan sanadkan gaarin tusaalahaan BTC sidoo kaleeto inay gaari karto ilaa next year ama sanadka soo socda 2026 bilood ugu horeysa marka aniga very optimistic ayaa ah in crypto ay kor u soconayso marka inaan la baqin haddii lacag kugu jirto lacagtaada aad haysatid aadna aad uga baqinin la soo jeedinayaa aad baa idin salaamaya muuqaalkaas inuu yahay markale kanaalka haddaad ku cusub tahay subscribe iyo share iyo follow hanaga hilmaamin asalaamu calaykum
سعيد خليفة ويا سلام يا